بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو يوسف أمين مانتا سعودال كينا وحكوة جاهني هاي جزيرة دا كوكوس إيو ودنها بدوين تا إنديا. haddii aad maalin u socdaasho jasiirad biyaheeda la iska dhex arki karo sida muraayada oo kale albaabihii aad ka galaalhayd ay wada yihiin beero kadibna afartaadii gees ee mar qura iswada qabsadaan aadaanka salaada haddegdegin hana isdhihin inaad ka hayantay caalamkii aad ku nooleed ama meelo kale aad u socdaashay balse weli waxaad ku nooshahay caalamkeenii weli waxaad ku sugan tahay mid ka mida jannooyinku eebbaweynu ku abuuray dunida dusheeda aan kuu sheegay waxaa timid jasiiradda Cocos. midda kaliya laga helo xeebaha Australia ee aqlabiyadda muslimka ah haddaba sidee ayuu islaamku ku gaaray jasiiradda Cocos Cocos waxay xeebaha galbeed ee Australia u jirtaa in ku dhow 2000 kilomitir dadkeeda kama badna 700 oo qofood cabirkeedana kama weyna 14 kilomitir laba jibaaran waana sida ay ku hanatay magaca qalbiga badweynta India waxay ka kooban tahay 27 jasiiradood oo yaryar balse dhamaanteeda ma aha mid deegaan u ah reer Cocos markii ugu horeysay waxa jasiiradan jiritaankeeda shaaca ka qaaday Captain William Kling sanadkii 1609 balse ma noqon mid deegaan noqotay ilaa inta laga gaaray qarnigii 19aad oo hooy ka dhigtay maqabeenkii reer Britain John Clonis Ross iyo qoyskiisa balse muddo yar kadib waxa soo caga dhigtay dhulkii jasiiradda badmareenkii Alexander Hyde iyo shaqaale oo watay oo ka soo kala jeeday Indonesia, Malaysia, India iyo Shiinaha si ay u gurtaan qumbaha oo ay hodan ku tahay jasiiradda Cocos isaliidiisana ay u dhoofiyaan caalamka intiisa kale imaanshaha shaqaalahan ayaa ka dhigay muslimiintii ugu horeysay ee yimaada jasiiradda Cocos la dhaqankii Alexander Hyde ee shaqaalihiisa oo ahayd mid adoonsi ah ay ka dhigtay in shaqaalaha dhexdooda noqdaan kuwa aad isugu xiran diintoodana ilaashada dabeeqadii qarnigii 19aad ay ku dhawaaqeen reer Clonis Ross in milkiyada jasiiradda iyaga leeyihiin taasoo meesha ka saaraysa xuquuqdii dadka kale ee ku noolaa balse hadalkaas ayaa noqday mid ay aad uga carootay dawladda Australia waxayna soo dadajisay in afti laga qaado dadkii ku noolaa jasiiradda taasoo markii dambe ka dhigtay inay qayb ka noqdaan dalweynaha Australia dadkan oo u badnayd Sunniyiin ayaa markaan xor u noqday inay diintooda ku dhaqmaan si xor ah muslimiinta ku dhaqan Australia tiradooda kama badna 1.7% balse markaad joogto Cocos waxaad la kulmaysaa midda cagsigeeda taasoo ah in dadka ku dhaqan jasiiradda in ku dhow 90% ay yihiin muslimiin muslimiinta Cocos waxay ku midaysan yihiin urur kaasoo maamula masaajida gaaraya ilaa 4 masjid iyo xurumo lagu barto diinta islaamka balse sheekada xiisaha leh ee in badan soo jiidatay dunida islaamka ayaa waxay tahay in 85% dadka reer Cocos ay yihiin xujaaj tagay beedkii Ilaahay taasoo ka dhigaysa dadka ugu badan ee caalamka ee hal goob ku wada nool ee soo xajiyay haddaba ma jeclaan lahayd maalin uun inaad booqato jasiiradda Cocos ee ku taala wadnaha badweynta India